Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada mar kale muuqaal kale. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku sharxi doonaa suuqan. Sida wada ogsoonaaba suuqa hadda waa OTC market oo maalin axad ah trade-kii aan qaatay. Marka waxaan filayaa inaa wax badan ka faa'iidi doonto. Laakiin waxaan ka codsanaa sakimo yaris aan ku qaadatay inaa muuqaalka aad la gelisid sidoo kaleetoodna haddii aad awoodid inaad hal qof u sii share gelisid aad u sii share gelisid maxaa yeelay waxaan doonaynaa in dhalinyaro badan aynu helno oo suuqan ka ganacsata yaanu war badan kugu daalin aan imaano suuqa sida ujeedaan waa 5 minute mar walba waxaan dhahnay analyzingka waxaan ka sameynaynaa 5 minute sida ujeedaan lowgan waxaan leenahay lower high low higher low higher low higher low high-gan meeshan aan dhigtay black horizontal line-ka waxaa ka dhacay be careful ah kugu qoran meeshan double momentum candles ayaa halkan ka dhacay it means waxaa waaye m pattern ama double momentum suuqan wuxuu ku xaqiijinayaa double momentumkan inuusan sii ahaan doonin uptrend mar walba oo aragtid suuq leh high low suuqaas waa uptrend ama jihadiisu waxa waaye uptrend marka goormee ogaanaysa inuu fashilmay uptrendkan ama uptrendkan inuu dhammaaday goormee ogaanaysaa waxaa ogaanaysaa markii high-gan uu sameysmay wabacdeen suuqu wuxuu isu bedelay lower low maxaa yeelay high lowgii uu ka hoos maray mujeedido marka waxaan leenahay lower low it means halkan waxaa ka dhacay bms maxaan ka wadaa waxaan ka wadaa breaking market structure suuqii wuu fashilmay wabacdeen intaan kadib waxaan sugaynaa manipulation wax la yidhaahdo suuqa waxaad ka sugaysaa manipulation haddaba sidee baan ku ogaa karaa marka manipulationka in uu sameynayo suuqu wuxuu sameynaa another consolidation kale suuqu wuxuu galay consolidationkii markuu galay wuxuu gaaray liquidity markii uu gaaray suuqu hoos uu soo degay hoos markii uu soo degay waxaa imaadeen buyers oo laba candle ah labadan candle sababta ay u imaadeen halkan horizontal line-ka madowga ah horizontal line-ka madowga ah dhigtay waa order block waxaa la yiraahdaa order block buyerski waxay isku dayeen inay soo buuxiyaan wabacdeen markii ay soo buuxiyeen waxaan cabirtay 50% waxaan cabirtay 50%gaas markii aan cabirtay 50%ga marka waxaan dhahay haddii la soo jebiyo oo ay buyersku ay halkan soo jebiyaan candleka koowaad uu soo jebiyo candleka labaad uu soo jebiyo candleka saddexaad ayaa waxaan usoo qaadan doonaa dhanka iyo downside maxaa yeelay uptrend maba u qaadi karin maxaa yeelay breaking market structure aa dhacay manipulation aa dhacay consolidation aa dhacay suuqa waxaan u qaadanaa lower option keliya marka suuqa markaan sidaas usoo taxliiliyey waxaan imaanayaa 1 minute all mindsetkayga ama maskaxdayda oo dhan waxaa ku qunfulan inaan tradekan usoo qaadan doono dhanka iyo lower option ama dhanka iyo hoose inaan usoo qaadan doono intaa kadib waxaan imaaday 1 minute saa ujeedaan linekii madowga ahaa waa kan break outkii halkan ayuu ka dhacay 50% lineka waa xariiqidan labadan candle u dhexeysa oo dhexda ku jirta break out aa dhacay candleka koowaad wuxuu noqday doji candle waxaa waaye indecision waa buyerska iyo sellerska idmini suuqa way ku wada jiraan laakiin buyers ma joogaan sellers ma joogaan waa macnaha okay waxaan sugay candlekii xigay wuxuu si toos u jabsaday 50% linekii markii uu si toos u jabsaday maskaxdayda oo dhan waxay ii sheegaysay in suuqan sellers ay soo geli doonaan so candleka intuu socday waxaan dareemay rejectionskaasna aad ayuu muhiim u yahay rejectionskaas it means waxaa waaye pressure ayaa ka jira suuqa sidaa daraaddeed waxaan usoo qaatay dhanka lower option saa ujeedaanne waan win garaynay marka insha allah waxaan idinkana idiin rajeynaa sidaan inaan suuqa u taxliilisaan insha allah horumar iyo baraare